السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجka kan isaga ah waan ku lafagurayo ama uu u yahay run ahaantii tixraac barnaamij youtube-ka aan ka daawaday dhammaan guud ahaan aan oran karo bulsho badan oo Soomaaliyeed laftoodu ay youtube-ka baraha youtube-ka ama barta youtube-ka ka daawadeen oo uu soo tabiyey walaalkeena youtuberka Cabdirasaaq Kabayare. run ahaantii anoo salugsan waxyaaba uu kaga hadlay ama nuxurkii halkaas youtube-kaas isaga ah uu kaga hadlay tirsigaas isaga ah isla markaasna haddana qiraya in arrimaha qaarkood uu taabtay ay wax ka jiraan oo ah dhankan iyada isirka. bal arrinkaas isaga waa midaan u soo noqon doono, balse marka hore aan dul maro arrimahaan ku salugsanahay walaalkay Cabdirasaaq Kabayare. barnaamijkaasoo ku salaysnaa lagu qotomiyey beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo ah beesha Habar Awal ee ka tirsan reerka Isaaqa, iyadoo run ahaantii uu soo qaatay 3 shakhsiyaad oo siyaasadeed oo beeshaas ka tirsan oo kala ah Maxamed Ibraahim Cigaal iyo Muuse Biixi Cabdi iyo Cumar Carta Qaalib. haddaan u guda galo wixii ku lug leh Maxamed Ibraahim Cigaal, waxaan oran karaa wax waa ka jiraan dhanka arrinka qabyaaladda inuu sabab u ahaa in Maxamed Ibraahim Cigaal uu ka tanaasulo gobollada Soomaaliyeed ee 6 ahaa ama degmooyinkii 6 ahaa ee Soomaalida kaga maqan dowladda Kenya. arrinkaas isaga ah wixii ku kalifay Maxamed Ibraahim Cigaal waxaa ka mid ahaa arrinka aad Cabdirasaaq ahaan taabatay oo ah isir nacaybka. arrinkaas waad la heshay, wax waa ka jiray, balse aragtidan taaganahay waxay tahay oo ah aragti quman tan toosan ana ah in arrinkaas isaga ah ama ficilkaas isaga ah ee ka soo jeeday Maxamed Ibraahim Cigaal aanu noqon karin mid loo nisbeeyo beesha Habar Awal. arrinkaasu wuxuu ahaa arrin qof shakhsiyad siyaasadeed loo nisbeyn karo oo ka soo jeeda mas-uuliyaddiisana uu qofkaas isaga ah ee hadda geeriyooday qaatay, dushana ka saaran yahay, taariikhdiisana run ahaantii baal mugdiya uu taariikhda ama sooyaalka Soomaaliyeed ka galay. sidoo kale dhacdadii ahayd in Cumar Carte Qaalib oo xilal kala duwan dowladdii Soomaaliyeed ka hayn jiray uu aakhirkii dhaqankiisii siyaasadeed isugu soo biyashubtay in uu ku amro ciidamadii qalabka siday inay isu dhiibaan maleeshiyaad beeleed, ujeeddadiisuna ahayd inuu burburiyo dowladdii Soomaaliyeed iyo horseedkeedii oo ah ciidamadii qalabka siday. arrinkaasna waaqaca iyo dareenka iyo sababta ka keentay waad asiibtay oo waxay ahayd arrin isir nacayb iyo isir kalkaal isagoo ay ka tahay ayuu ficilkaas isaga ah ee siyaasadeed u sameeyey. runtiina waraysi uu bixiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliyeed Cali Mahdi Maxamed, arrinkaas isaga ah wuxuu ka muujiyey in macnihii xukuumaddiisii ay meel kaga dhacday
hadalkiisuna ahaa nuxurkiisu in loo qariyey balse uu ka xun yahay arrinkaas isaga ah uuna qirsan yahay inuu ahaa arrinkii halbowlaha u ahaa dumistii qarannimadii dowladdii Soomaaliya. balse ficilkaas iyo dhacdadaas iyada ah ee siyaasadeed ee sooyaaleed aragtidaydu waxay tahay inaan loo ismeyn karin, inaan sabab looga dhigi karin, inaan dusha laga saari karin beesha habar awal ee Soomaaliya, uuna ficilkaasu ka soo jeedo shakhsiyad siyaasadeed oo ku kooban Cumar Carte Qaalib oo geeriyooday, taariikhdiisuna sooyaalkiisa siyaasadeed iyo qarannimo dhacdadaas awgeedna uu ku dambeeyey inuu ku mutaysto ku galo baal mugdi ah. giilba iyo facba facu ka dambeeyo ee Soomaaliyeed arrinkaas isaga ah ay isu warin doonaan, ayna hor istaagi doonaan, wax badanna la darsi doono oo la falanqeyn doono. sidoo kale in Muuse Biixi Cabdi uu ficilkan maanta ah uga tanaasulay macnihii dowladda Itoobiya baddii iyo ciiddii Soomaaliyeed suu ictiraaf u helo ama dana kale u helo siyaasadeed ama dhaqaale, waa arrin run ahaantii foolxumadiisa leh, maantana loo taagan yahay, buuq badanna dhaliyey, balse mas-uuliyaddiisa sooyaaleed u xambaarsan yahay Muuse Biixi Cabdi, balse arrinkaas isaga ah aan dusha laga saari karin beesha habar awal. inkastoo beesha habar awal ay maanta go-aankaas isaga ah ku taageersan tahay, balse arrinkaas uu yahay arrin kale oo macnihii la saanqaado oo ku lifaaqan arrinka Soomaali diidnimada iyo goosashada. balse beesha habar awal la mid tahay aragtidayda dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo haldoorkeeda siyaasadeed iyo dhaqan ee xadgudubyo kala duwan oo dhaawacaya bulshada Soomaaliyeed iyo danaha Soomaaliyeed iyo sooyaalka Soomaaliyeed iyo himilada Soomaaliyeed ay geystaan. arrinkaasna kala mid yihiin beelaha kale ama shakhsiyaadka ka soo jeeda beelaha kale ee Soomaaliyeed, ay shakhsiyaadka habar awal Muuse Biixi Cabdina ka mid yahay, ama guud ahaan beesha habar awale maanta jirta ay kala mid tahay beelaha kale ee Soomaaliyeed ee ka tanaasulay runtii midnimadoodii iyo wada jirkoodii iyo jiritaankii dowladda Soomaaliyeed. saas awgeed waxaa lama huraan ah in macnihii aan lagu riixin foolxumada iyo waxyeelada beel Soomaaliyeed. aan ognahay in dowladda Itoobiya ee maanta ololaha u wada howlgalka ugu jirta inay la wareegto ciidda Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed ay ku xidhan yihiin siyaasiyiin badan. 30 sannadood ee laga joogay dhiciddii iyo burburkii dowladdii Soomaaliyeed ee ku xidhmeen dowladdaas iyada ah ee gaarka xun Itoobiya, siyaasiyiin badan iyo saraakiil badan oo ka soo jeeday dhammaan qaybaha kala duwan ee beelaha Soomaaliyeed. siyaasiyiinta beesha habar awal ee Soomaaliyeedna ay ka mid yihiin kuwaas oo kale, aan lagu tuhmi karin beeshaas iyada ah ama beel kale oo Soomaaliyeed ama shakhsiyaad beel ka soo jeeda wax gaara ama xidhiidh gaara ay kaga sokeeyaan, kaga duwan yihiin la xidhiidhka dowladda Itoobiya. arrinkaas oo dhanna ay ka siman tahay Soomaalida maanta ee 30 sannadood dhaqmaysay jirtay,
habdhaqankaas inay u dhagan nuglaayeen dowladda Itoobiya, dabadhilif u ahaayeen dowladda Itoobiya, ku xidhnaayeen ay hubka isugu dhiibaysay iyo kaalmada siyaasadeed iyo security, arrinkaasuna yahay mid Soomaali oo dhan ka siman tahay. waa arrinkaas isaga ah. run ahaantii waxaan barnaamijka kan isaga ah oo tixraaca ah uga daba qaatay walaalkeen Cabdirasaaq Kabayare. aan na leeyahay barnaamijyada noocaas oo kale marka la jeediyo waxay u baahan tahay aragti dheer oo qoto dheer leh, wixii la darso, balse aan laga soo qaadin si yar oo fudeednimo ay ku jirto ama wax loo ekaysiiyo muuqaal iyo qaab aanu geli karin ama aanu ahayn. beeshaas iyadana habar awal iyo beelaha guud ahaan Soomaaliyeedna aan laga waayeen halgamadii iyo utafaxaydkii ku adkaysiga himilada Soomaaliyeed iyo halgamadii Soomaaliyeed ee kala duwanaa. sidoo kalena ay kala siman yihiin beelaha Soomaaliyeed iyo shakhsiyaadka Soomaaliyeed xilliyada uu gaabisku ku yimaado himilada ummadda Soomaaliyeed ama jabka ama xaaladda burburka iyo wacyi hoosidda ee saameynta ku lahayd bulshada Soomaaliyeed. beesha habar awalna ee beelaha Soomaaliyeed kala mid ahayd. daawada dhegeyste, waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf. intaan ku kulmi doono barnaamij kale oo kala mid ah, iga guddooma salaanta islaamka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.